Soo dhawaada asxaabta, muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay presentation sida aad u samaysan lahayd ama presentation aad u qurux badan sida aad ugu samaysan lahayd ayaa maanta idin tusi doonaa. Intaad janaalka ka cusubtahay fadlan subscribe noo saar, waad mahadsantahay. Muuqaalkeena ayaan guda galaynaa. Marka koowaad waxaad soo furanaysaa applicationka Chrome-ka, waxaad ku qoraysaa marka searching-ka gamma.app ayaad ku qoraysaa. Markaan sidaan ayaa ku qoraysaa gamma.app. markaa ku qortid waxa waa register-gareynaysaa. marka waa is-register-gareynaysaa. markaad is-register-gareyso waxaa kuu soo baxaya calaamadan plus ayaad ku diyaarsan kartaa wixii aad rabtid. halka plus ayaa sii taabanaysa. marka wixii aan ku diyaariyay waxa waaye halkan waxyaabo badan ayaan ku diyaarshay. waxa waaye sidaan waayo waxyaabo badan ayaan ku diyaariyay. marka marka aan dhahno ayaan isla eegi doonaa sida aad uga diyaarsan lahayd presentation-kaaga. ayaa dhahaynaa. marka markaad dhahdo sidaa waaye sidaan ayuu ku soo baxayaa. marka midkaan ayaa taabanaysaa. markaan text file-kan meeshaan ayaa taabanaysaa. marka waxa waaye meeshii aad rabtid ayaa dhawata celebrity Google Play meesha aad rabtid kan ayaan dhahaynaa. marka is-register-gareynaysaa register-kii ku celinaya. marka connected ayaan dhahayaa. sidaan ayaan leeyahay Google Drive-ka hore waxa waaye waxaygii Google Drive ayaad ku samaysay Google Drive xiranaysaa. marka inbox-gii hadda ayaan soo baxay. hadda marka halkan waan ka sii laabanaynaa. halkan waan ka laabanaynaa. marka waxaad taabanaynaa rate meeshaan ayaan taabanaynaa. marka rate ayaan taabanaynaa. marka waa noo soo baxay markii presentation-kiisi aan u diyaarsan lahayd ee noo soo baxay. markaan presentation-kii halkan ayaa ku qoran yahay website-kii documentigii haddii aad rabtid documenti aad ku raawataa cardiskii waxa waaye slide-ka aad rabtid luqadii aad ku rabtid waxa waaye halkan ayaa ku qoranaysaa. markaan wixii aad u baahanaysay markaan waxay dhihi doonaa presentation ayaan u baahannahay cardkii waxaa ka dhigaysaa. marka 10 ayaa ku egyahay inta kale waa lacag. hadda markan 10-kii ayaan taabanaynaa. meeshan Englishta ah Soomaali ayaan kasii raadinaynaa ama Soomaaliya maga jirto Ingiriiska ayaa nagu taabanaysaa. marka halkaan ayaa ku qoraysaa markii waxay aad rabtid ayaa ku qoraysaa. waxa waaye markii aad sidaan ku dhahdo presentation-kii ayaa ku soo baxaya. marka isagoo qaab fiican ayuu ku soo saari doonaa. marka qaabka aan aadka u helay website-kan waxa waaye waxaa ku tusin doonaa markaan wixii uu isticmaalayay buugaagta oo kale ayuu ku tusi doonaa. marka koowaad wuxuu ku leeyahay introduction to editing ayuu ku leeyahay the importance of editing ayuu ku leeyahay different types of editing ayuu ku leeyahay the editing process ayuu ku leeyahay training of technology ayuu ku leeyahay. marka sidaas waaye hadda wuxuu aad u baahanaysay slide-kii ayaa kuu sheegay. marka 10 slide ayuu ku leeyahay. markaan 10 slide ayuu ku leeyahay. mid kasta waa furaysaa. introduction-kii waa arkaysaa. haddii aad rabtid waa iska deleedi kartaa. introduction-kii waad iska furaysaa. class-kii continue ayaa dhehaysaa. markaan slide-kii aad u baahnayn waa iska deleedi kartaa. midkaan ma u baahni sidaan ayaa dhehaysaa. delete ayaa dhehaysaa. markaan kan ma u baahni markaan sidaan kugu soo baxo hadda waxaad dhehaysaa markaan continue meeshaan ku qoranta ayaa dhehaysaa. continue ayaa dhehaysaa. markaan
wax yar ayaan sugaynaa. Markaan waxa waaye dadkii timekii ayay taabanaysaa, timekii ayuu kugu soo baxayo ayaad taabanaysaa markaa midkaan ayaan sii taabanaynaa, midkaan ayaan gelin, kan ayaan sii taabanaynaa, generate meesha ku qoran tahay taabanaysaa. Marka wax yar waa sugaysaa ayay kugu soo bixi doontaa. Marka yar ayay sii sugaysa doontaa. Marka waxa waaye slide-kii oo dhammaystiran hadda ayay isu qoramayaan, slide-kii oo dhammaystiran application introduction-keeda waa ku sii qaybna hodeen ayuu ku leeyahay. Waxa waaye sidaas ayuu ku leeyahay. Sawirkiina waan ku sii doonaa markaan introduction-kii importance of editing-kii muhiimadii ayuu ku leeyahay, ku siinaya different types of editing ayaa ku siinaya. Waxa waxyaabo badan ayaa ku siin doonaa. Marka editing processka oo la marayo editing-ka ayuu ku siinayaa. Marka editing for creator and custom ayuu ku leeyahay. oo waayo cinwaanadii aad u baahnayd dhan ayay ku soo saari doonaa. Voice-kii ayuu ku leeyahay, tailkii waxyaabo badan ayaa ku sii koramaya. Sidaas ayay presentation-kii ku diyaarsanaysaa. Presentation-kii markaan ilaa hadda way soo koramayaan, quality-kiisii ayuu ku sheegi doonaa marka uu dhamaaday. Marka sidaas ayay ka samaynaysaa. Sawirkiina wuu lagu sii doonaa. Editing-ka waxyaabaha uu ku fiican yahay waa kana, sawirkiina wuu ku soo dari doonaa. Marka waxyaabo badan ayaa muhiim ku ah meeshan. Same kinta ayaan dhihi doonaa. Marka meesha marka hadda presentation-kii homekiina ayaa noo soo galay. Haddii aad u baahan tahay si aad u daysan lahayd, waxaad samaynaysaa copy ayaa dhihi doontaa, xariiqinta ayaa ku eegi doontaa, copy ayaa dhehaysaa. Marka hadda waxa waaye presentation-kiini waa noo soo baxay. Halkan ayaa kasoo sii baxeen presentation aad u qurux badan, aad ku cajabinayo sida aad u diyaarsantay ee ku soo tusinaynaa. Privacy ayuu kugu qoran yahay. Waxa waaye public-na waa jira, privacy ayuu kugu qoran yahay adiga. Saas waaye. Marka halkan waxaan isla eegi doonaa, halkan ka dhinacaan ayaan isla eegi doonaa. Marka waxyaaba aad ka samaysatay waxa waaye waliba 80 kaart ka samaysatay, cinwaan ka samaysatay ayuu leeyahay. Waxa waaye trash-kii recycle bin-kiisa ayaa kali kartaa application-ka. waxyaabo badan ayay ka helaysaa. Marka jumping-ka marka halkan kale waxa waaye oona way lagu soo dhaweynayaa. Marka sign up-kii haddii aad rabtid ayaa dhihi doontaa. Ilaa hadda haddaan la joogtay channel-keena, subscribe noo saar. aad iyo aad u mahadsantahay. Intaan ku kulmi doonaa muuqaalka xiga. Bye bye.